بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلو ميل أجوك تنبا ويدين سلامة يا سلام تيدا هيدين قارتو أيان لي هاي سلام كبعدي وحربها أنكه الله وحيابها هدو كسو كوري ودن كينا إثيوبيا سيدا الله سعطان وحاوية شلي تاريخ دو مركي هي تضوي لباتنكي بيشي سدحاد لبكوني سيديتون waxaa magaalada Addis Ababa lagu doortay ninka bedeli lahaa Haile Mariam Desalegn ama ninka noqon lahaa Prime Ministerka Ethiopia. Ninka lagu bedelina waxa weeye ninka waa nin Oromo oo la yiraahdo Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali waa nin ceenkiya. Abiy Ahmed Ali waa nin Oromo ah oo ka soo jeeda gobolkaasi Jimma. Abiy waa colonel military ah. Korneelka Abiy sidoo uu ayuu ku helay. Abiy korneelka wuxuu ku helay 2006 markay dawladda Ethiopia ay ku duushay. Abiy korneelnimadaas wuxuu ku helay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ayaan farayaa yaan lidin qaldin yaanan maaragtay ninkaas Abiy Ahmed la yiraahdo magacaasi Ahmed yuusan qaldin waa ninkaasi waa nin oo dhameeyay ummadda Soomaaliyeed waayo wuxuu ka tirsanaan jiray ciidamada sirdoonka dawladda Ethiopia inta sirdoonkaas ku jiray darajadaasi wuxuu ku gaaray dhiigga ummadda Soomaaliyeed waxaan la yaabanahay Soomaali qaarkood aan iyagoon waxba ka fiirsanin ninkan u hambaleynaya ninkan wuxuu galo iyo wuxuu gudo waan naqaana waa colonel military dhameeyay jiray ummadda Soomaaliyeed kana tirsanaan jiray ciidanka nabad sugidda dadka Soomaaliyeed marka maxaakiinta islaamka ay jirtay waa ninka dadkaasi oo dhan xirxiri jiray oo jeel ku guri jiray marka jeelka ku guro ka bacdi 6 bilood markuu haysto qofka ay diisan garka laga xiirin ama shaarba laga xiirin tima ayaa ku soo baxay wuxuu leeyahay dadka waa maxaakiin waa argagixiso saas ayuu dadka reer galbeedka ugu dhiibi jiray tan labaad muddo hadda 2 sano ama maaragtay muddo hadda 2 sano ku dhow ama sanadaan iraade ama 3 sano ninkan markuu military uu ka soo tagay wuxuu dhacay xoolo fara badan markuu meesha ka resign garoobay 30 milyan oo bir ayuu meesha ka soo qaatay kadib markii uu soo qaatay wuxuu ku soo cararay ama uu soo galay gobolkiisa ama maaragtay regionkiisi oo meesha uu isagu ka soo jeedo halkaas ayaa laga soo doortay wuxuu noqday ninkaasi nin ka tirsan baarlamaanka dawladda dhexe isagoo taa ku jiraan wuxuu noqday isla marhaanta wuxuu noqday gudoomiye ku-xigeenka ama ismaamulka Oromada ama kililka afraad Oromada inta kililka afraad uu joogay waxa la ogyahay inuu ka dambeeyay dhibaatada ka dhacday ummadda Oromada iyo Soomaaliya ta ka dhacday Awadaya 45 qof lagu dilay sabab isaga uu ahaa 65 lagu dilay harar isaga dhibkaas sabab uu ahaa 49 ilaa 100 qof oo lagu dilay Mooyale Uudad gobolka Daawo isaga sabab uu ahaa markaan ninkan ya Soomaaliyeed ninkan idin qaldin ninkan waa nin dhiigay caba yaana la soo dhawaysanin haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed haddii aan awal aan maaragtay support gareyn jirnay wax la yiraahdo EPRDF hadda ma jirto way dhamaatay waxa hadda jira oo maaragtay hadda soo baxay OPDO waa Oromada ismaamulka Oromada waa partiga Oromadu ay leeyihiin sidaas darteed ninka waa nin maaragtay nin dhiigay caba Oromadana waa taqaanaan dhibka ay nagu hayaan dhibka ummadda Soomaaliyeed ku hayaan dhibka Oromadu nagu hayso intaasoo Ethiopia amxaarada nagu ma hayso Tigray nagu ma hayso Afarta nagu ma hayso walaamo walayta nagu ma hayso Sidaamona nagu ma hayso waxa weeye maanta tan haddii inta ninka heli lahaa nin Soomaali heli lahaa Oromo waxay sameynayaan maanta waa ognahay waxaan u maleynaa inay burburin lahaayeen wax wadankaas Ethiopia waa nimanka noo diiday inay maaragtay aan noqono maaragtay adda Ethiopia hana noo aqoonsado diiday marka qofka saa ku diido adiguna inaad tiisi diido waa waajib ku saaran qaasatan ninka kan waa nin la og yahay
sanadkan oo dhan nin dhammeeye buu ahaa soomaalida, nin tirtiree buu ahaa soomaalida, dhiigiya cab waay, soomaali ayuu dhiiggeedii ayuu cabbay. marka ninka kan yaa la soo dhowaysanin, dowladdiisna yaa la soo dhowaynin, meel aad joogtaanba yaasan idinku qaldin magaca Abiy Ahmed. dadka qaar waxay leeyihiin rabbi ayaa og, isaga waxbaan ka maqal, laakiin waxaa laisku raacay inuu yahay nin Kristiyaana, uusan ahayn nin muslima. dadka qaar waxay leeyihiin qofkan qofku waa muslim, waa markii ugu horreysay qof muslima oo qabsada Ethiopia, oo marka sidaasi darteed ayaa aad u faraxsan yihiin. laakiin ma ogo ninkan wuxuu ku sameeyay Soomaaliya. ninka waa ninka tirtiray ummadda Soomaaliya sanadkan, taana darajadana wuxuuna ku helay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. tii hore korneelkana wuxuu ku helay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliyey waxaan idin farayaa ninka yalla soo dhowaysanin, dowladnimadiisa la aqoonsanin. marka saasa idin farayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقنا وحا اللي يرادا أباقنا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.